asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabta. Waxaynu ku guda jirnay barashadii cryptocurrency. Waxaynu halkan ku baranaynaa sida la isaga diiwaan geliyo Binance, exchange-gan loo yaqaano Binance ee Soomaalida ay aadka u yaqaaniin. Marka Binance marka koowaad aad aragtidba sawirkiisu sidan u egyahay. Loogadan wataa magaciisuna waa kan. Marka waxaad soo gelaysaa Google Store-kaaga ama Apple Store-kaaga hadba telefoonkaad haysatid. Waxaad ku qoraysaa Binance. Binance markaad la soo degto install tiraahdid sidan uu kuu soo baxayaa. Sidan markuu kuu soo baxo waxaad leedahay open baad leedahay. Open markaad tiraahdid sidan uu kuu soo baxayaa. Sidan markuu kuu soo baxo waxa labadan icon buu ku tusayaa. Marmarka qaarna halkan singa app ku qoran tahay registration buu soo saaraa. Marka login waxaa isticmaali karaa qofkii hore ee account-ka haystay. Marka qofka cusub ee markaa soo gelaya ama raba inuu furto wuxuu oranayaa singa app markaad tiraahdid halkan uu ku keenayaa. Halkan markuu ku keeno doorashooyin waxaad haysataa inaad ku geli kartid Google account-kaaga iyo inaad Apple account-kaaga ku geli kartid iyo inaad Telegram account-kaaga furan aad ku geli kartid. Wuu ku siinayaa halkan hoosena haddana inaga siinayaa isla sidii labadii icon oo marka hore aynu soo aragnay. Marka qofku marka koowaad uu cusub yahay labada doorasho ee marka qofku doorto waxa weeye inuu account-kiisa halkan ku qoro iyo inuu halkan geliyo oo dhaho Google account igu fur ama Apple account hadba kiisu markaa ugu talagalay inuu ka furto account-ka. Labada option buu siinayaa. Terminal service-kana inaad iska soo akhrisid oo aad iyadana aqbashid iyadana waa lagama maarmaan. Inaad password aad u adag samaysato oo 8 xaraf ka kooban ugu yaraan 8 xaraf ka kooban oo number uu ku jiro xarafka ugu horeeyana uu weyn yahay letter oo ay ku jirto calaamadahan markaan wax qorayno noo soo baxa calaamadun ama plus ama dollar ama slash wuxuuna aad raacisid si uu magac password adag uu u noqdo. Marka labaadna inaad telefoonkaaga gelisid iyo waddanka aad joogtid country code-kaaga. Marka intaas samaysid halkan uu kuu soo saarayaa haddana oo ku leeyahay telefoonkaaga ama email-kaaga ku furo haddana. Marka labadanaad haddana hadba kii aad rabtid ama telefoonkaaga aad sii gelin karaysaa. Tanaad registrationka tanaad create account baad leedahay ii fur account-ka Binance. Terminal service-kana iyo inaad iska soo akhriday oo iyaga laftarkoodu aad si fiican usoo dhegdhegaysay markaasaad iyagana tigta saaraysaa. Saasaad usii gudbaysaa. Halkan uu kuu soo saarayaa markaa wuxuu kuu soo dirayaa code buu kuu soo dirayaa. Badanaa labadaba wuu isticmaalaa inuu email-ka kuugu soo diro iyo inuu SMS kuugu soo diro. Labadaba doora buu ku leeyahay. Kana taabanaysaa copy aad soo dhaxaysaa halkanaad nambarkii gelinaysaa. Markaad gelisid oo xaqiijisid inaad adiga tahay waxaad usii gudbaysaa inaad samaysatid security muhiim ah oo lagama maarmaan ay tahay inaad account-kaaga aad u adkaysid oo aad la soo degtid Google Authentication. Google Authentication waa app Google uu leeyahay oo aad security-ga u ilaaliya. Number buu ku siinayaa. Markaad la soo degtid buu wuxuu ku siinayaa xarfo si faraysa. Xarfahaas markuu ku siiyo baad Google-ka ku save garaynaysaa. Xarfahaasna markasta waa inaad haysato waayo Google wuu kaa bixi karaa. Xarfaha haddaanad haysan oo account-kaaga berito ka maalin ma lihid adigu hadduu aanad garanayn Google Authentication-kaagii email-kaaga waad heli kartaa waad bedeli kartaa password-kaaga telefoonkaaga sidoo kale waad bedeli kartaa waad heli kartaa. Laakiin Google Authentication-ka 24 xaraf uu ku siiyo
magac uu ku siiyo 4 xaraf, 14 24 xaraf buu ku siinayaa ka kooban. waa inaad xafidataa oo meel adag dhigataa. sidan kuu soo saaraya marka wuxuu ku leeyahay waxaad xaqiijisaa wadanka aad joogtid ama sharciga aad haysatid. KYC waa inaad martaa, qofka aad tahay is caddaysaa. countryga aad joogtid ama sharcigiisa aad haysatid. inagu Soomaali haddaan nahay sharcigeena wuu aqbalaa Binance. marka waxaad gelinaysaa, halkan waxaad gelinaysaa ID cardkaad gelin kartaa. ID cardka iyo wuxuu ku siinayaa inaad ID cardka gelisid, iyo inaad driving license gelisid, iyo inaad password gelisid, passport inaad gelisid. marka hadba kii markaa kuu dhow. haddii aad ID card haysatid ID cardkaad gashanaysaa. haddii aad driving license haysato driving license-kaad gelin. haddii kale passportkagaad gelinaysaa. saddexdaa markaad gelisid oo ka gudubtid, wuxuu kuu dirayaa sawir ama video yaroo selfie ah oo marba uu kuleeyahay dhinac u raac, hadba kor qoorta sidan ugu gal. marka uu halka intaa ku mariyo aad intaa ka gudubtid, continue aad dhahdid, halkan uu ku keenaya wuxuu ku leeyahay arrintaada waa isku dhan tahay. akoonkaagii diyaar weeye inaad ku shaqaysatid buu u diyaarsan yahay. inaad wax iibsatid iyo inaad heshid kiribto intaba diyaar buu u yahay. marka sport tradingkan waxa weeye maadaama inagu dad muslima nahay oo mar walba waxaynu ku shaqaysanayno wax xalaala inuu noqdo aynu rabno. kiribtadu luuqluuq badan oo waxyaabo xaaraan ay ku jiraan baa jira, sida future-ka oo kale. marka inagu badanaa inta badan iswaabka ma dhaafno, iswaabkaanu ka tiragaraynaa ama coinaka ka gadanaa. halkan talooyin muhiim ah ku qoray oo ah inaadan isticmaalin password fudud. passwordkaagu mar walba uu adkaado, password adag yahay, aadaad uga taxadirtay. inaad isticmaashid Google Authentication key baalkii aan markii aan soo sharaxnay. ha gelin future haddii aanad aqoon u lahayn. future wuxuu qabto iyo wuxuu yahay haddii aanad garanayn, ha gelin. markasta waa inaad banaanka joogtaa, iska ilaalisaa. ku bilow iswaab spot tradingka inaad isticmaashid markasta. marka halkan gunaanadkii iyo mahadcelin baan ku qoray. aad baad mahadsan tihiin. videoga waxaan ku baranay sida laysaga diiwaan geliyo step by step Binance. marka halkana waxaan dhigay loogooyin iyo magacyadii exchange kale oo haddii aad u baahatid oo aanad wadankii joogin ama dokumentiyo kale aad haysatid aad isticmaali kartid. KuCoin laftarkiisu aad buu u fiican yahay, waad isticmaali kartaa. Bybit sidoo kale. kan isagu badanaa wuxuu ku fiican yahay qofkii trade sameynaya. Maxi eToro isagu waa dee number one weeye, laakiin waa Yurub buu ka shaqeeyaa. badanaa lagama helaan malaynayaa Soomaaliya iyo ka shaqeeya baasaboorkeena. eToro wuxuu leeyahay waxaad ka heli kartaa crypto forex kan malaynaya xataa inaad ku trade gareyn karaysid laftarkiisa. Stoga number one stog iyo crypto labadaas waa huba waad ka heli kartaa. halkana waxaa jira crypto.com. crypto.com isaga laftarkiisu aad buu fiican yahay. isaga laftarkiisu waa la isticmaali karaa. marka hadba meeshaad joogtid bay ku xiran tahay. exchange-yadu aad bay u badan yihiin. marba kii markaa ku anfaca dee suuqan aad baratid ood sii dhex geshid waad dareemi karaysaa, waad heli karaysaa. haddii aad qabtaan wax su-aala fadlan waxaad noogu reebtaan commentiga videogana share gareeya, siina subscribe gareeya.